بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Dr. Mukhtaar Muuse Bakar. maanta ay bishu tahay 16 bishii 2 2026 waxaan ku sugannahay deegaanka magaalada Santarka Kaam Hashim oo halkan aan ku sugannahay tahay xanaanadiisii ama MCH-kii xaruntii caafimaad ee lahaa magaaladu lahayd. runtii xarunta caafimaad ay magaaladu leedahay uma qalabaysna mid qaadi karta ama awood u leh inay qaado dadka deegaanka ku nool. guud ahaanba siday noo sheegeen inamada gacanta ku haya xanaanadu deegaanku wuxuu adeegaa dad 6,000 ku dhow 6,000 ee ay u adeego deegaanku u adeego ma haystaan meel lagu fuliyo adeeg caafimaad ay u baahdaan. mararka qaar waxaa dhacda in dawooyinkii ay u baahnaan ay ka go'aan dadkii xanuunsanayay aanay haysan meelo waadho ay jiifsadaan ama lagu adeegi karo. sidoo kale aanay haysan shaqaale caafimaad oo ku filan. intubana ay yihiin waxyaabo runtii taabanaya caafimaadka deegaanka. laba wiigun bay ahayd ka hor markii aan halkan soo marnay aan xaaladda eegnay. runtii xaaladdu magaaladu maalintaa way fiicnayd laakiin maanta wejigii ka duwan baanu ugu nimid oo ah inay xumadi ka dilaacday xumadna ka jirto. dadka xumadu hayso ma haystaan meel lagu adeego oo adeegii loo qaban lahaa lagu fuliyo. waxaan dhammaanba beelweynta Hashim Abakar gudayo dibadba meel ay joogaanba ka codsanaynaa aan fariin u diraynaa. hadday guda joogaan iyo hadday dibad joogaan iyo hadday deegaanka Hashim joogaanba inay isku tashadaan qorshana ka yeeshaan guntigana dhiisha iskaga dhigaanay falowgeeda geli lahaayeen sidii xarunta caafimaad loo dhisi lahaa loo qalabayn lahaa dadkii markaa ku shaqayn lahaana loo keeni lahaa si aynu dadkeenu u helaan adeeg caafimaad oo tayadiisu aad u sarreyso sida ay u helaan magaalooyinka qayrkooda ee ka dhisan ama guud ahaanba dowlad deegaanka ay leedahay. waad arkayseen adeeg caafimaad aan maanta bixinaynay runtii maanaan haysan makaaniyaadkii noo suuragelin lahaa inaanu adeeg caafimaad oo dhammaystiran qabanno oo aan ugu adeegno guryaha cadcad ee lagu adeego dadka xanuunsanaya. markaa waxaan ugu adeegaynay dhirta hoostiisaan dadka ugu adeegaynay. taana kolley waxa keentay waa duruufta jirtun baa keentay. marka waxaan dhammaan beelweynta Hashim Abakar ku boorinayaa sidii looga samata bixin lahaa dadkooda walaalaha ah xaaladdaasi oo aynu heli lahayn meel qurux badan oo aan dadkeena ugu adeegno. dhammaan aad baan idin wada salaamayaa.